أيها الغرباء. ناشدتها يا غرباتي، وهكذا يجني الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. ناشدتها يا غرباتي، وهكذا يجني الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. يا غربة التفكير في زمن تحطم الفتن. الحق مر قوله، ما أعذب العقبى وإن العلم يشكو أهله، وخصومه تشكو الوهن. العلم يشكو أهله، وخصومه تشكو الوهن. دفنوا البصيرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة، حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال. فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي جميعا، inta ama caawa annaga ay noo tahay dhegaysanaysa ama eraygiiya weedhaydu ay dib ka gaari doonaan, ama guud ahaan muslimiinta, ilaahay waxaan uga baryaa subxaanahu wa tacaala inuu xaqa nagu suga inta aan nool lahay, islaamka saxiixa iyo caqiidada tooskanna nagu nooleeyo, iyadaana nagu dilo nagu oofsada subxaanah. ummaddan ilaahay hidaayada iyo hanuunka u sahla abwaabtiisa, baadida iyo dhumitaanka abwaabtoodana rabbi uu ka badbaadiye subxaanah. ikhwaani akhwaatii jamiican, arrinta toosnaanta iyo inxiraafka ama xaqka leexashada ummadda muslimiinta waxaan filayaa siyaabo badan ayay culimmadu uga hadlaan ama ay u qaada dhigaan. mar muslimiinta isku duubnaantooda iyo midnimadooda iyo walaaltinimadooda xaqa ay walaal ku noqdaan iyo qaabkay u dhici lahayd baa looga hadlaa. marna waxaa laga hadlaa sunnada qabsashadeeda iyo mukhaalafaadka iyo bidaca ka tegitaankooda. mawaadiicdeeda fara badan ama inba qaybiya noocay tahay, fadhi iyo laba lagama wada gaaro, laakiin caawa waxaan isku dayayaa ama fadhigayga waxaan isku dayayaa in aan dhowr arrimood kaga hadlo. arrinta koowaad, waajibka asalka ah ee ummadda muslimkaa ka saaran xaqa qabsashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo duruqda iyo qaabka xaqa loo mara raacitaankiisa iyo kelimadoodu waaxida hal mida in ay noqoto qaadashada xaqa.
arrinta labaad een tilmaami doono waxaa weeye arrintaa waxa ka baxsan ee ah ikhtilaafka iyo inay dhici doonto in la qaybsamo oo la kala tago dadkuna qaybo iyo dawaa'if ay noqdaan arrinta saddexaadan wax ka tilmaami doono muslimiinta namaadijtii iyo tusaalayaashii horeyna u soo dhacay haddana raadkoodii iyo muuqaalkoodii iyo dhaqankoodii wax ka jiro ee xaqa oo laga baydho kadibna kooxa iyo dawaa'if iyo firaq la noqdo xaqii iyo dariiqii wanaagsanaa si uun uga baydhay la noqdo marka waxaan doonayaa insha allahu tacaala isku dayayaan oo aada u soo koobkoobaya inaan saddexda arrimood mid walba kelimad kooban aan ka idhaahdo arrinta koowaad asalka muslimiinta waxaa waajib ku ah inay qabsadaan kitaabka iyo sunnada kelimadoodana ku mideeyaan waxaana xaraam ka ah inay tafaruq iyo ikhtilaaf ku dhacaan xaqa iyo sharcigana ay uga leexdaan ahwaana ka raacaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisu arrimaha ku tilmaamay waxaa ka mid a qowluhu tacaala sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayk wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimu ddiin walaa tatafaraquu fiih kabura cala almushrikiina maa tadcuuhum ilayh nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii kale waxaa loo waxyooday marka la sheegay baa waxaa la yidhi waxaa ka mid ahaa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih diinta toosiya kuna toosnaada fahamkeeda ku dhaqankeeda iyo raacitaankeeda wax ku xukumkeeda diintu sida ay tahay u raaca oo u qaata hana ku kala tegina fahamkeeda iyo raacitaankeedee sida ay tahay ee xaqa u wada qaata waxaa ka mid aayadaha qur-aanka ilaahi subxana wa tacaala uu ku leehay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu xariggaa ilaahay ee kitaabkaa la idiin soo dejiyey iyo hadyigaa sunnadee nabiga calayhi salaatu wasalaam siday yihiin u qaata oo ku isugu duubnaada hana isku khilaafin oo ninba meeshay kala degto ama maankiisa iyo maskaxdiisa uu moodo oo keliya hala aadina dariiqeedii iyo qaabkii loo fahmayey u mara jidkeedii u raaca sidii ilaahay ula doonayey nabigiisuna calayhi salaatu wasalaam ku bayaaniyey saxaabadii iyo salafkiina ay u qaateen u raaca saas aayadda macnaheeda innaga saamayn inoogu yeelanayo noqonaysaa siyaabo badanna nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga digay inay ummaddani diintii qaar fudaydsato ninba suu dooniyo ahwaada la aado dad sunnadiisa qaar diidaan qaar axkaamta sharciga inay u hoggaansamaan ay u fududaan weydo arrintaa inta haddaan kaga gudbo arrinta labaad een tilmaamayaa waxay tahay ummaddani way iskhilaafi doontaa kooxa iyo qaybo badanna waa ka soo dhex bixi doonaan fahamkii diintii in laga inxiraafo oo xaqa laga baydho oo qolaba ay meel ku yaaciso waa iman doontaa ilaahayna qur-aankiisuu ku yidhi walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk dadkan khilaaf weligood ka dhammaan maayo inta ilaahay u naxariisteer naxariistiisu ay kelimadooda xaqa ku jamcisa maahane nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa sii sheegayo xadiidka cirbaad ibni saariyana waa ka ku yidhi fa innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kathiira nabigu alay slam markii uu wacdiyey waa kay ka dareemeen in ajashiisii soo dhowaatay oo nin dardaarmaya uu yahay
markaasay yidhahen kaannaha mawcidatu muwaddicin fa awsina nin dardaarmayo oo dhan u batay baad u eg tahay bal nala dardaaran markuu yidhi cabsi ilaahay iyo samci wataaca madaxdiinna iyo muslimiinta mas-uuliyiintiina inaad ka dambaysaan hadalladiisii waxaa ka mid ahaa fa innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kathiira khilaaf badan iyo kala jeed badan iyo qallooc badan iyo kooxa kooxa badan buu arki doonaa qofka idinka mid ee noolaadee cimrigiisu ku simo waa kay soomaalidu yidhaahdaan waxaa ma aragna da'deedaadaan gaarin waxaa ma cuninna baahideedaan ku qaban hadday baahi rasmi ah ku qabato wax walba waad cuni da'dii cimrigu haddii ilaahay kugu simooo laguu dheereeyana wax badanoo waaye aad goobjoog ahaan ama siday soomaalida qaar tiraahda cimrigaagoo dheeraaday geel dhalaayana waa ku tusaa taa macnaheedu waxaa looga jeedaa ninkii cimrigiisu dheeraado oo wakhti badan noolaada wax badan oosan arki jirin buu arki doonaa saxaabadii taqiinay dadkoo isku duuban nabigu uun hoggaamiyey calayhi salaatu wasalaam walaaloo iswada jecela isu hiiliya xaqa hal dariiq u wada raaca ayaa waxaa lagu yidhi fa innahu man yacish minkum qofka idinka mid oo sii noolaada cimrigiisu dheeraado fa sayara ikhtilaafan kathiiran khilaaf badan buu arki doonaa oo ummaddani way iskhilaafi doontaa way islayn doontaa way isdhiig bannaysan doontaa kooxa iyo firaq bay noqon doontaa mar kaluu nabigu arrintaas sii xaqiijiyey calayhi salaatu wasalaam oo xadiis saxaabo badan laga warinayo ay ka mid yihiin mucaawiyata bni abi sufyaan radia allahu canhuma wa ardaahumaa iyo rag kale ayaa wuxuu ku yidhi iftaraqat ilyahuudu calaa 71 firqatan waftaraqat الnasaara calى 72 firqa wasataftariqu hadihi اlumma calى 73 firqa nimankii yuhuuda inaga horreeyey 71 kooxood bay noqdeen nasaarana 72 bay noqdeen ummaddanina 73 bay noqon doontaa kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida dhammaantood naar bay mudan yihiin ama jidkiiyo dariiqa ay qaadeen waa mid naar lagu muto hal mid marka laga reebo taa tilmaanteeda mar wuxuu yidhi hiya aljamaaca waa jamaacada muslimiinta ee isku duuban ee xaqa isugu duuban marna wuxuu yidhi hiya asawaadu alacdam ama hum asawaadu alacdam muslimiintu halkay u badan yihiin weeye dee saxaabadii nabigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam dhacdooyinkii ay la soo noolaadeen dhan bay u badnaayeen muslimiintuna dhan bay isugu duubnaayeen riwaayo kaleoo dacfi ku jiraa jirtoon asixin oo leh hiya maa calayhi ana alyawma wa asxaabi aniga asxaabtaydu dariiqaan haysana dadka haysta weeye macna ahaan saxiix ha noqoto laakiin riwaaya ahaan waa daciifa si kastaba ha noqotee xadiidkaana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay in khilaafka sharcigu ha reebo laakiin qadaran uu dhacayo wax qadaran yahay shariicadu haddaba khilaafka ma rabto mana ogola laakiin haddana waxaa lainoo caddeeyey qadaran qadar ilaahay qadaray weeyo khilaafku waa iman doonaa saa darteed khilaafka inaan ka hor tagnoon yaraynana waa wax meesha ku jira tan labaadna inaan la macaamiloon la dhaqanno saan ula dhaqmi lahayn laga hadlo oo sax iyo khalad la kala sheegana waa arrinta labaad oo qadaran way dhiciya marka ay dhacdo dadka xaq iyo baatilkan ay u kala caddaato walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam makhrajka looga baxayo waxbuu ka tilmaamay xadiidkii cirbaad ibni saariya qayb buu kaga tilmaamayo wuxuu yidhi fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi tamasakuu bihaa wa cadduu calayha binnawaajid wa iyaakum wa muxdathaati alumuuri bidaca iska ilaaliya gadaal diinta ka iman doona oo dariiqii khulafadii aa laga soo gaaray aan ahayn maxaa yeelay fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala riwaayadka qaarkood kula dalaalatin fi nnaar ma doonaya inaan xadiidkaas kusii dheeraado marar badan baa laga hadlay
in badanna inaad ka bogateen maan filayaa munaasabaad kala duwan laakiin axaadiidtaa waxaan uga jeedaa qodobka labaad inaan tilmaamo oo ah muslimiintu inay xatmi tahay inay iskhilaafayaan buu sii sheegay nabigu sal ly slam isagoo ka digaya nusuusta nabiga iyo kitaabka iyo sunnadu ay ka digayaan khilaafka ba haddana laynoo sheegay waa dhici doonaa iyo sidaynu uga bixi lahayn qodobka saddexaad waxaan u gudbayaa khilaafkii nabigu tilmaamay sala allahu aleyh ali wasalam ee qoloba meel la maray wuu dhacay saxaabadii oo qaar khulafadu nool yihiinna waa soo bilowday qaarkoodna astaamihiisi iyo calaamadihiisu nabigoo nool bay dhaceen sala allahu aleyh wasalam muslimiintii waa qaybsameen muslimiintii dawaa'if iyo firaq bay noqdeen muslimiintii kooxo badan iyo dad badan oo faham la qallocday ama hawe ay jiidatay baa ka soo dhex baxay dad badan oo dhankii loo waday diinta aan ahan wadin oo dhan kale iyo faham la qallocday baa ka soo baxay marka dawaa'iftaas baan dhowr magacooda ka tilmaami doonaa kuwii intay soo baxeen aan muuqaal badan oo muuqdoo dadku wada taaban kara aan lahayn ama iska dhammaaday oo baaba'ay dee waxba sheegitaankoodu macnaha soo kordhin maayo kuwa aan sheegi doonana ma aha firaqii la tilmaamay oo dhan iyaga keliya ma aha nabigu alay salaam wuxuu sheegay oo keliya 73 inay gaari doonaan hal midi ka toosan tahay magacyadoodana ma tirin meelahay ka soo kala bixi doonaanna ma sheegin waqti ay soo kala bixi doonaanna ma wada tirin haddaba tirinta iyo intaasay noqonayo intaasaa usuulihi waa culummada muslimiinta qaar ka mida ijtihaadaadkooda weeyo siday markaa iyaga ula muuqatay ay u cabbireen firaqa muslimiinta ka soo dhexbaxay waxaa ugu horreeyey taariikh ahaan firaqii la baxay khawaarijta oo nabiga oo jooga calayhi salaatu wasalaam unugooda iyo asaaskooda hore uu soo ifbaxay ninkii dilkhuwaysrata tamiimi la dhihi jirayna uu asaas iyo lafdhig u ahaa dhagaxdhigoodii hore uu ahaa ninkaasi nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam oo cali amwaal uu ka soo diray yaman u qaybiyey niman odayaal oo kaaba qabiilla ahaa islaamkana lagu soo jiidayey inay ku sugnaadaanna la doonayey oo mu'allafatulquluub ahaabuu u qaybiyey mar haddii dhaqaalihii nimankaa loo qaybiyey nimankii reer najdi ahaa ee raggii cuyaynata bni xisnin iyo aqrac ibni xaabis iyo ay ka midka ahaayeen dadkii muslimiinta ah qaybaa ka carooday muhaajiriin iyo ansaarba leh ansaar iyo qurayshba leh waxaa laleeyahay sanaadiidu najdin buu u qaybinayaa xoolihii nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii waa la hadlayoo wuxuu ku yidhi islaamkan dadkan u soo jiidayaa islaamkanay u soo dunmaan oo ay garab u noqdaan oo islaamkoodu xoogaysto oo dad wanaagsan noqdaan duqay laga dadkoodu ka dambeeya weeye baan doonayaa waxaan xoolaha u siiyey saasuu nabigu ugu fasiray sal lla alay slam nin dadkii meesha joogay ka mid ah baa tafsiirkii nabigu qancin waayey sawir waxaa istusay ah nabigu inuusan cadaalad samayn qaabku wax u qaybiyeyna uu jawr iyo dulmi yahay saasaa buu istusay markaasuu wuxuu yidhi maxamedow ittaqi illaaha ilaahay ka cabso riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin inuu ku daray aniga iima muuqata ilahay inaad kaga baqayso riwaayadka qaarkood waxay ku darayaan inuu yidhi haadihi qismatun maa uriida biha wajhullaahi nabi maxamedow saad wax u qaybisay ilaahay dartii kaama aha ninkani haddaba sidii xaqee loo qaybin lahaa iyo diinta nusuustai caamka ay sheegtay dhacdooyinka sidii loogu dabaqi lahaa buu rabaa nebi maxamed inuu ka difaaco oo wuxuu leeyahy nebi maxamed waa ku tumanayaaye adigu uga noqon loo yar oo ka difaac nebi maxamed cadaaladii ka luntay adigu soo celi xuquuqdan meelaan la dhigin buu dhigaye ka dagaalan baa ku jirta ninkan waxbaa istusay waxbuu ismoodsiiyey
laakiin waxaa ka hoos baxdoos garan waayey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa waxyiga lagu soo dejiyey isagaana ugu yaqaana mawaadicda iyo meelaha ku habboon waxa uu sameeyana waa xaq sidaa uu u fasiray baa sax inaad u qaadatay haddaad si kale u haysatay waxbaa kaa qaldanaabaa ka hoos baxday intaasuu yidhi hadallada qaarkood waana iska dhaqaaqay oo waa baxay sidii qof caraysan oo xusul duubaya oo xanaaqsan buu fud intuu yidhi buu meeshii ka baxay rag saxaabadaa weydiiya rasuulka ilaahi oo ninkan qoorta iyo unuunka aan jarne nagu sii daa bay yidhahdeen nabig saxaabadiina cashar buu siiyey oo riwaayadka xadiidka qaarkood baa tilmaamay inuu yidhi inuu tukanayaa laga yaabaa markaasaa waxaa lagu yidhi imisaad tukanaysoon iimaan qalbigooda ku jirin nabigu quluubta dadka layma dirsan waa riwaayadka khawaarijtii usuushoodii qaar ay tilmaamayaan qaar nabig alay slam wuxuu ku tilmaamay ninkani inuu horu dhac u yahay niman dhib badan oo soo bixi doona oo salaad badan oo cibaadaad badan oo qayladooda iyo eraygoodu diintaha lagu dhega sidiisaasoo kale ay tahay laakiin meesheedii aan u wadin meel jinni ka tuuraya fahamku meel gaara la marayo oo nusuusta nabiga marka la uruuriyo calayhi salaatu wasalaam simaad iyo calaamado tilmaama ay u samaysay waa nimanka muslimiintu ay u yaqaanaan tawaa'ifta taariikhdooda alkhawaarij loo yaqaano ama almaariqa la yidhaahdo ama almuxakima la yidhaahdo ama alxaruuriya la yidhaahdo magacyo badan bay lahayn laakiin waxaa ugu caansan magaca khawaarijta la yidhaahdo oo wuxuu yidhi kan ciribtiisa dambe waxaa ka soo bixi doona dad yaxqiru axadukum salaatahu maca salaatihim wa siyaamahu maca siyaamihim soonkii idinka soomi soom fiican idinkana salaad fiican yaquuluuna min qowli khayri albariya khalqigan ilaahay nabigu u khayr badnaa qowlkiisi iyo diintiisii aan ku dhaqanna bay leeyihiin yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiya diintana waxay uga dhex baxeen sidii fallaarintii xoog wax loogu dhuftay dhinaca kale uga baxday laa yaqra'uuna alqur'aana qur-aanka waa aqrinayaan laakiin laa yujaawizu xanaajirahum halkan dhuunta uma dhaafo hoos uguma dega fahamku tilmaamo badan buu ku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamuhu ku tilmaamay iyo simaadka iyo calaamadahooda ay culummadu tiriyeen dee waxaan fadhigan kusoo koobi karna ma aha waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah in dunuub iyo macaasi diinta looga saaro oo la yidhaahdaa waa gaaloobeen dunuub iyo macaasi aan kufri ahayn kadibna sida gaalada loola dhaqmoo dhiiggoodana la bannaysto dhulkoodana dhul gaalo iyo daaru kufrin weeye la yidhaahdo iyagu markaa inta ay joogaan iyo inta raacsanna muslim iyo ahlul islaam iyo daarul islaam weeye keliya ay noqoto wixii kaloo dhanna ay noqdaan kaafir iyo daaru kufrin laga dhigo waa calaamadaha ay leeyihiin muslimiintiina markaas ay sidii gaaladii ula dhaqmaan taa waxaa ka dhalatay tilmaan labaad oo nabigu ku yihi yaqtuluuna ahla alislaami wa yadacuuna ahla alawthaani muslimiintana waa layn doonaan gaaladana weydeyna way badbaadin doonaan muslimna kama nabadgalo iyaga aan raacin ama na soo raac ama gaal baa tahay wey ama annaga garabka yaga noqo ama munaafiq baa tahay wey ama sida yada qaado ama dhiiggaaga iyo cirdigaagu xalaal weeye halkaasay mareen dee muslimiin badanna waa baabi'iyeen oo saxaabadii qaar ka mid a ridwaanullaahi calayhim gacantooday ku tageen tilmaamahooda markii xadiidka la eego yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum in fahamka diinta iyo xasiilada cilmiga ee sharciga aqoontiisu ay aada ugu yar tahay laakiin dad qiiro iyo xamaaso badan hayse ay yihiin baa calaamadahooda ka muuqanayay uu nabigu kusii tilmaamay sala allahu aleyh ali wasalam waa dad xamaasaysan waa dad qiiraysan waa dad diin u guntan waa dad naf iyo maalba u huraya laakiin faham fiicanna ma jiro aqoon fiican oo diineedna ma laha rusuukh filcilmina ma jiro waxa laalay markaa geeda jiir iyo gebi ka dhac iyo ciddii gebi ka dhacaad tidhaahda war waxbaa qaldana ma saxnid in la yidhaahdo adiga laftaaduba safka gaalada ku biir dhiiggaagu waa xalaal cirdigaaguna waa xalaal la yidhahdo iyo maalkaagu waa tilmaamihii nabigu tilmaamay sala allahu aleyh alih wasalam waxaa ka mid a tilmaamaha
iyo calaamadaha lagu tilmaamay waxa laalay wixii amr bilmacruuf annahyi can ilmunkar ahaa ciddii khilaafta dagaalkooda in lagu fasiro oo calaalay ciddii khilaafta iyaga warkooda ama ka hor timaada ama waa qaldantihiin tiraada in la dilo oo lala dagaalamo amri bilmacruuf annahyi can ilmunkarna la geliyo waxyaabihii tilmaamaha ee lagu sheegay bay ka mid ahaayeen aqoon darrada badan waxaa u dheer buu nabigu yidhi da'yaraan dad yaryar oon diin aqoon u lahayn oon waayo arag iyo caqli iyo khibrad badan lahayn oo gebidhac iyo geedkabood uu ku badan yahay markuu leeyahay xadathaau lasnaani sufahaau alaxlaami waa dad yaryar yihiin waa garasho yar yihiin garasho badan ma jirto bisayl badan ma jiro faham diinadoo badan ma jiro caqli badan ma jirto waayo aragnimo ma jirto taan eri unbaa saxa kii diidana gaal iyo munaafiq iyo mujrim weeye dhiiggiisi iyo maalkiisi iyo cirdigiisuna xalaal weeye waa simaadkii ay dadkaasi lahaayeen daa'ifadii u hooseyey muslimiinta khilaafka nusuusta khilaaftay nusuusul waciid oo dhanna in lagu dhaqmo dembigan ciqaab buu leeyahay nusuustii wacdiga iyo naxariista ballanqaadka iyo wasci naxariista iyo dembi dhaafkana aan dhegba loo dhigin oo la duugo baalkooda la aaso sidaasna waa sida la fogaato nusuusul waciid baa la fogaatay nas alaalay naskii sheega dembigaa waciidkaasuu leeyahay waa sida uu yahay iyo ka badbadis ka badan ha loo qaato nusuusta kalee sheegtay naxmadda iyo makfirada iyo abwaabul cudrigana wax ka soo qaad ma laha kaannahu inaan la maqal baad moodaa haddaba hal daraf nusuusta in la qaato daraf kalena la diido simaadkii iyo calaamadihii ay lahaayeen bay ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa simaadka iyo calaamadahooda waxaa la yidhahdaa guruur ismahadin iyo dadkii culimmada ahaa iyo dadkii diinta yaqiinee xambaarsanaa oona waxna loo hambayn waxna laga dhegaysan oo nimaan waxba garanaynin oo qiiradaa mooyeen fiqhi diinadoo badan aan lahayn oon rusuukh filcilmi uu ku xididaystay aan lahayn inuu ka wada cagmeersa is yidhaahdo oo aniga keliya unbaa jira yidhaahdo nimankii markay soo baxeen saxaabadii khulafadaa joogay cali baa jooga radia allahu canhu wa ardaah cuhmaan baa qaarkood soo gaareenoo gacantooda loo eersadaa calaa khilaafin culimmadu siyarka taariikhda isku hayaan cabdullaahi ibni cabbaas iyo saxaabo badan baa joogay maba u haystaanba saxaabadii nabiga la nooleed ee qaar khulafada ahaayeen inay diin yaqaanaan ama diin in laga dhegaysta ay tahay ama masaa'ilkan mushkilka ee mugdigu galay iyaga ay rabbaaniyiintii loo noqon lahaa noqdaan waa diideen kuwaas waa jaahiliin kuwaas waxba kala oga kuwaas diinta daacad kama aha kuwa iyaga laftoodaa nifaaq iyo riddo ku dhacay halkaasay ka miiseen oo saxaabadiibayba intii dambe kaarar cascas oo ridiya inay gaaloobeen bay u wada jareen hasaa darteed ninkan waa khayr buu lahaa male ninkan qadam iyo sabqi fil islaam buu lahaa ma laha ninkani cilmiga iyo aqoontii dadkii lahaa weeye ma laha midka jaahilka iyaga ah kelimadiisaa la dhagaysan ninka caalimka raasikha ee saxaabigii iyo raggii ka midkaha ama taabiciintii ku tafaquhday ahaana warkiisu wax ka soo qaad ma leh isagaaba muttaham ahba isagaaba marka dambe gaal mujrim oo munaafiq oo dhiiggiisu xalaal yahay ah laanna mukhaalifiin buu noqday meeshuu joogana waa daaru kufrin isna kaafir weeye maalkiisana xalaal weeye wahaakadaa taana simaadka iyo calaamaadkooda bay ka mid ahayd waxaa astaantooda ka mid ahayd inay deg deg badnaayeen marka wax la xukumayo ama shaksi ha noqdo ama dawaa'if ha noqdee koob shaahoo la cabayaba kama duwanaba waxaabaad moodaaba qofku waa haliilayaa waa ku fakfakanayaa wax inuu xukumo halka la yaqiinay tathabutka in la hubsado in macaadiirta la eego in wujuuhda masalada la gedgediyo in la yidhaahdo alkhata'u fi alcafwi khayru min alkhata'i fi alcuquuba qofkan inaad ku qaldanto oodan xukun adag saarin baa ka roon ood qaldantay baa ka sahlan xukun adag oo qalada inaad saarto inuu qofku ereyguu leeyahay cawaaqibtiisa u fiirsado xukunkuu saaraya waxa ka dhalanaya uu garanayo nusuusta atraafteedii kala duwaneed iyo ixtimaalaadka uu camal siiyoo dhan meeshaba kuma jirtaba waa qof haliilaya
ood moodo gool inuu banooni kula cararayo sidii bay ahaan jireen waayo ninka soo gaare iyagaa xukunku jeebku u saaran yahay culummo uma noqdo fiqhi uma noqdo cid kale uma leexdo isagaa xukunkii gacanta ku wata kadibna hadduu fursaddeeda helo fulintii iyo seefteedina isagaa gacanta ku wata saasay ahaan jireen khawaarijtii hore simaadkooda waxaa ka mid ahaa manhajka istidlaalka nusuusta loo fahmayo in wax badan si ka yah sida imaamu albukhaari uu ka warinaya ibni cumar radi allahu canhu wa ardaahu wuxuu leeyay ibni cumar inطalaquu ilaa aayaatin nazalat fi lkufaari fajacluuha fi lmu'miniin aayaad gaala ku soo degay bay intay soo ururiyeen bay muslimiintii dusha ka saareen markaasay gaalo kaga wada dhigeen oo xugum gaalay wada siiyeen dabcanna shariicadeennu furuuq badan bay leeyihiin axkaamta muslimka qaldamay iyo gaalku waxa uu sameeyo axkaam furuuq badan baa u dhexaysa qofka muslimkii ixtiyaad iyo acdaar badan buu leeyahay mawaanic iyo shuruud badan buu leeyahay ama kufri ha noqoto masaladu ama bidca iyo fisqi ha noqoto xuduud baa imanoo shubuhaad lagu reebayo abwaabtaas oo kaleetana waxaa un geli kara dad ahlulcilmi ah oo wixii garanaya oo masaa'ilkii sharciga iyo atraafteeda miisaami kara oo aqwaashii ahlilcilmiga iyo dalaa'ishii garanaya tan laakiin nimankan iyagu ma laha hal aayad haddaan helo oo aniga saan doona aan u fasirto ani cidii ka hadlaysay iyo ciday ku soo degtay ima khusayso asbaabu nuzuul iyo fiqhigii culimmadana meel wax ii yaalla ma aha ciddaan roodaan ku dabaqi saan roodaana saan doonaana u fahmi waa sistamkii iyo qaabkii ay ahaan jireen wey waxaan kusoo gabagabeynayaa astaamihii waxa la yidhaahdo suu'u dunuun qof walba shaki iyo tuhmaa laga qabaa erey iyo fal kastoo la arkana ixtimaal iyo fasirka ugu xun baa lagu fasirayaa saasay ahaan jireen quluubta niyaadkaa la gelayaa meel xun buu uga jeeday baa laleeyahay wax xun buu lahaa baa laleeyahay ficil kastoo qofka lagu arko labada ixtimaal iyo tafaasiir intuu yeelan karo kan ugu xun baa lagu fasirayaa mar walbana dhinaca guluwiga iyo tashadudkaa loo iilanayaa dhinaca samaaxada iyo rifqiga iyo cudurka maaha marba haddii uu intaasoo tafsiir leeyahay hal tafsiir haddii uu tafsiir adag iyo xumaati iyo suu'u danni ku salaysan yahay kaasaa la qaadanaya sidaasay ahaan jireen nin saxaabada ragay dhaleen oo khabaab ibnu arata uu dhalay bay u yimaadeen iyagoo kooxa hubaysan nimankii khawaarijta ahaa wuu argagaxay oo wuu soo baxay gurigana xaaskiisii oo addoontiisii ahayd oo ilmo uur lahayd baa joogtay si ay kutub taarikh sheegayaan waxaa la yidhi miyaad soo argagaxday hawaad argixiseen ba waga nixiseen adiga saxaabigii khabaab ibnu arata ahaa maa ku dhalay haa isagaa i dhalay waxaad noo sheegtaa xadiidaad nabiga ka maqashay aabbaha uu ka maqlo oo kaaga sheegay noo sheeg bay yidhahdeen markaasu wuxuu ku yidhi aabbahay waxaan ka maqlay inuu nabiga ka maqlay sal ly salam muslimiinta haddii dagaal dhex maro kun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil addoonka ilaahay la dilee la dulmiyo noqo midka isagu dulmi wax ku dila ha noqon fahamka qaabdarradiisa durbiya deg dega fiiri ma hubta aabbaha inaad ka maqashay haa ma nabigu ka maqlay haa isagaa la qabtay qoortaa la jaray waa la dilay kun cabdallaahi almaqtuul cabdullaahiga la dilay noqon nabigu amar inuu ku bixiyay u haystaanba amar nabigu bixiyeyoo cabdullaahiga la dili doona noqo amarka nabiga ay fulinayaan bay isu haystaan waaba dileenba ninkii ee aabbaha wuxuu nabiga ka maqlay noo sheeg iyo waa idiin sheegayo waa ku dilaynaa laba isqabataa maaha marka suu'ul fahmiga iyo tacajulka faraha badan iyo suu'u dunuuntu simaadkii laga dhaxlay bay ahaayeen inxiraafkaana sabab u ah khawaarijtu hadda wayna jirtay de waa taariikh muslimiinta badan oo dhiig badan daatay baa soo martay oo dhiig badan oo muslimiinta bay daadiyeen mana jirin weligood dhulay gaalo ka xoreeyeen iyo gaalo ay soo islaamiyeen intay muslimiinta ka dhex kacaan unbay iyaga gam iyo baabaha ka dhigi jireen gaalka meeshiisa kuma doonan jirin oo ma aadi jirin taariikh dheer oo dhiig badan daatay baa lala soo maray hadda dawaa'iftoodii kuwii horena waxbaa ka nool kuwo badan oo sifaadkii lehna dee dib bay xiliyadan ka soo baxeen kuwii hore daa'ifa alibaadiya la yidhahdaa ka noolo meeshan saltanatu cumaan la yidhaahdo
nimanka haysta ee sultaan qaabuus iyo reerkiisaa wey baqaayaadkii tawaa'iftii iyo firaqii khawaarijta weeye ibaadiya la yidhaahdo qaybo ka mida tuulooyin jazaa'ir ka mid ahna inay degaan oo tuulooyin iyo deegaano ku leeyihiin bay ku sheegaan dadka firqada ka hadli iyo baqaayaadkoodu meelahay ku kala nool yihiin laakiin iyadoo uun sidii ah oo magacyo ka duwan wadata bay xilligan dambe soo baxday oo xarakadan la yidhahda ama ururkan la dhihi jiray alhijra atakfiir walhijra ee shukri mustafa iyo masar ka soo baxday innagana soomaalidana imtidaadka iyo ilaa maalinka maanta furuucda inagu leh dawaa un tawaa'iftii khawaarijta furuucdoodii iyo baqaayaadkoodii wey masar bay ka soo baxeen dhowr iyo lixdankii toddobaatanaadkii ilaa kor bay u kaceen munaasabaad kale aan kaga hadlay taariikhdoodii iyo asbaabtii kaliftay iyo culummadu waxyaabaha badan ay ka qoreen innaga soomaalida igu muhiimsan inta ina soo gaartay inaan ka hadlo oo aan wax idinka tilmaamo innagu markii hore fikirka khawaarijtu wuxuu ina soo gaaray baan u malaynayaa xilliyadii siddeetamaadkii buu ina soo gaaray raggii uun dhowr iyo toddobaatankii xirxirkii dadka la xirxiray iyo culimmada la laayay ka kala cararay ee dhallinyarada iyo raggii saxwada iyo dacwada ahaa qaarkood caalamul carabi markay tageen bay ku ta'athureen sidii ninkii cabdiqaadir sheekh maxamuud iyo kooxdiisii ahaa ma waxay la kulmeen raggii reer masar ma khaliijkay meelo qaybo kale kula kulmeen mise rag ma ka joogay nin mustafa kamaal la dhihi jiray iyaa saameeyo oo ta'hiiriyey riwaayaadka ragga culummada yadii hay noo sheegeeni waxbaa kala duduwan nin walba xogta intuu ka ogaa laakiin ragga ta'ahur kaa qaatay waa rag weli nool xarakadii takfiirka ahayd ee soomaaliya ka dilaacday bay ahayd wejigeedii hore mar bay kala jabtay dhexda ahayd sagaashameeyadii ahayd iyagoo ay u yaqaanaan kala jabkii muslimiinta ee koobaad ay u yaqaanaan garabka hadda ugu nashaad badan qoladii hore way iska yara hadaaleene garabka ugu nashaadka badan baa ka dilaacaye hadda ninka qardha jooga uu odayga ka yahay maxamuud nuur cismaan ee daarul hijra meesha ula baxay oo halkaa qardha la fadhiyo iyo daa'ifadiisan jamaacatlmuslimiin isu yaqaana ee takfiirka la yidhaahdo bay u xuub siibatayoo kala jabkii koowaad ee muslimiinta yidhaahdaan mar dhexdaas ahayd oo dhowr iyo sagaashankii ahayd oo iyaga laftoodu isa sii khilaafeen oo qaybi ka jabtay nin brofesor cawsey la yidhaahdii ay ka jabeenna waxay u yaqaanaan kala jabkii labaad ee muslimiinta kitaab buu qoray dawaa'if buu leeyahay masaajid bay leeyihiin ishtiraakaad iyo tabarucaad bay ururisadaan dadka muslimiinta idinku taqaanaanna gaalay u wada yaqaanaan mar baan munaadaradood qayb la galay oo laga yaaba inaad maqasheen qaybihii dambe waa iga cudur daarteen waxaan hayaa waraaqo odaygoodu soo qorayo tamyiizu diini lafdiyiin la yidhahdo iskaga mamnuucaya atbaacdiisa xalaqa wareeg iyo labaad iyo saddexaad oo dood iyo munaadaro dambaa inay dhacdo iyagana waa taqaanaana ishaaro un baan uga jeedaa qaybta waxaan ku soo gebagabaynayaa hal jus-iyo oo la yidhaahdo ghuluwiga atraaftiisa waxaa jira ghuluwi badan oo jira hadda saaxada muslimiinta guud ahaan innaga soomaaliduna aan qayb ka nahay oo simaadkii khawaarijta wax ka shabbahaya walow aanu wada ahayn siday ahaayeen laakiin shabah iyo awjuhu tashaabuh badan ka dhaxaynayo qaarkood markii uun mas'alada su'aal iyo jawaab la adkeeya ay gashana aad arkaysa xaggaa inuu u sii biyo shubanayo oo u sii daadegayo ma doonayo inaan ama wax magacaabo ama aan meel gaara farta ku fiiqan laakiin simaadkiiyo calaamooyinkaan soo sheegay haddaad saaxada muslimiinta guud ahaan ama teenan soomaaliyeed ku soo noqotaan wax badan baa idinka muuqanaya ama ghuruurka iyo tacaaliga aan diinta iyo masaladii wiilaan waxba garanaynin uu la boodayo wuxuu rabo xukumayo oo culimmadii iyo ahlulcilmigii laftoodiiba ciddii war masaladu waa qaldan tahay la yidhahday isagii ayna ka badbaadaynin ha noqoto ama suu'u dunuunkan qof walba la tuhmayo ama qof walba waxbaa qaldan la yidhaahdo
diintiisa iyo diyaanadiisa laga shakinayo ama ficil iyo qowl kastoo dhacaba sida u xun loo fasirayo dunuub iyo macaasi badan oo dhiig iyo maal iyo wax badan lagu bannaysanayo waxaan filayaa duni badan oo muslimiintaan la wadaagnaaye keli inugama aha laakiin wax badan baa inaga haysta haddaba simaadkii hadalkayga haddaad dib ugu noqotood u dhegaysato saaxada muslimiinta guud ahaanta soomaalida gaar ahaan aad ku soo noqotana wax badan baad ka arki doontaa oo calaamadihii iyo astaamihii wax uun la wadaaga astaamahaasoo kale markaad isku aragto astaamaha waxaan u sheegaya waxaa ka mid a in qof walboo inaga miday dib isugu noqdo hadduu astaamaha iyo calaamadaha aad iska aragtana madaahirtaasna aad ogaato in lagu soo galay inxiraafku soo galay xaqa leexasho ku soo gashay waxoogay gebi dhacaa uu soo socdo meel xun aad ku socoto haddii aad aragta qof astaamaha iyo calaamadaha ka muuqdaanna adna aad iska ilaaliso isagana haddaad awooddo nusxi iyo duca uu kaa mudan yahay qoladaa inta haddaan kaga baxo taariikh ahaan waxaa xigay niman innaga soomaalida hadda ka hor aan ka badbaadnay laakiin hadda aan aad uga baqayo waxaana inagaga bilowday waa daa'ifada tashayuca iyo shiicada la yidhaahdo wey shiicadu maraaxil badan bay soo martay cali radia allahu canhu wa ardaahu bay isyar xijisiiyeen markii hore mufadila la dhihi jiray oo cuhmaan cali baa ka fadli badan bay ka joogtay markii labaadna cali baa abubakar iyo cumar ka fadli badan bay u gudubtay markii saddexaadna cali iyo waxaan cali ahaynan raacsanayn muslimba ma aha bay saddex ugu sii gudubtay iyo saxaabada in la takfiiriyo caqaa'id tiro badan oo dhib badan bay yeesheen aakhir waxay gaarsiisay qur-aankanba ilaahay inuu soo dejiyey kii uu soo dejiyey oo dhammaystiran inuusan ahayn oo qur-aanku 60 jus ahay oo 30 maqan tahay qaar uu adhi cunay saxaabada badankood inay gaaloobeen waxaan iyaga ahaynba ahlunaar inuu noqon doono awliyadu iyo a'immadoodu inay adduunkaba maamulaan qaybka ay og yihiin ilaahay adduunyada maamulkeeda uu ku wareejiyey ahlu sunna iyo saxaabada inta lasoo nooleeya aakhare ka hor inay adduunka ku shaabuugi doonaan ay ku daldali doonaan bad bay la martay waa qoladan dawaa'iftoodii marka hore way fara badnaayeen laakiin hadda waktigeeni 12 ama raafida niman la yidhaahdo oo hadda ciraaq iyo iiraan iyo lubnaan xisbullah iyo aaga ka jira innagana lugta inugula soo duxay oo xataa dad wadaada fiican aan ku naqin jiray oo soomaali ahaa ay bahashii duufsatay oo diin la-aan ka dhigtay baa iyada lafteedu daa'ifada labaad ee horeyna u jirtay dhib badanna taariikhda muslimiinta iyo dhiigooda soo marisay ilaa haddana dhibkeedii uu ku socdo ah innaga marka xogay waan ka yarroonnahay laakiin waa layna bilbilaabay bililiqadii dadkeenna iyo dalkeenna ay kala qaxeen bililiqadii baan baabkaa qayb ka gallay ku dheeraan maayo iyada muxaadaraad aad u fara badan oo 12 oo maqal iyo muuqaal oo taariikhdooda iyo dawaa'iftooda aan kaga hadlay baa jiray kuwa koo kooban oo caqaa'idooda aan kaga hadlayna waa jireen iyo xukunkooda taana intaas labaad baan kaga bixi waqtigana digniin baa la isiinayaa daa'ifada saddexaadeen tilmaamaya waxaa weeye waqti horena soo bilaabatay fahamkuna inxiraafka meel xun kala degay ilaa iyo maantana innaga aad inoo qasaysa daa'ifada tasawufka iyo suufiyada la yidhahdo wey tasawufku markii hore zuhdi buu ahaa adduunyada aan la isku badin cibaado iyo aakhirana la badiyo astaamaha bini aadamka iyo dadku inay adduunyada iyo waxeeda laalaabaan aakhare keliyaan u goyo oo adduunyo shaqo kuma lihi yidhaahdaan nabigoo nool bay fifaalaheedu soo baxday nabiguna waa ka hortagoo waa damiyey 3 nin baa guriga nabiga tegay sala allahu aleyh waali wasalam cibaadaadka nabiga ay xaasaskiisii iyo reerihiisa waraysteen way la yaraatay nin wuxuu yidhi anigu weligay guursan maayo ninna wuxuu yidhi anigu weligay waan afuri oo soomi oo afuri maayo ninna weligay habeen seexan maayo yidhi warkii baa nabiga gaaray calayhi salaatu wasalaam waa u yeeray walaadha miidinkaasaa yidhi haa laakiin iyagu khayrdoon bay ka ahayd wuxuu yidhi dhegaysta anugu waan seexan waanan tukan waanan soomi waanan afuri haweenna waan guursan dariiqaa ninkuu anfici waayee sunnadayda ay anfici weydaayey falaysa minii jidkayga ani ma haysto haddii xilliyadii quruntii hore dabayaaqadoodii la soo gaaray dad wixii bilaabaa yimid oo u arka
in la guursado inay cibaadada kaa mashquulin, in habeenkii la seexdo in ilaahay cizadiisa iyo weynankiisa oo fiican aynan ahayn, cibaado loo go'o. duurgalayn iyo rahbana bilaabatay marka dadka laga dhex baxo, duurka sawmacada laga samaysto, meeshaa lagu cibaadaysto. weli waa roonaydo nolol adag oo la iska aqbalo iyo cibaado loo go'ay ahayd. kullu shaytaanin wa zindiiqin baa halkaa ka soo galay marka, oo intuu busto xirtay oo qof zaahid oo caabida iska dhigay wixii uu qasi karay qasay. way socotay, tashayucii baa dhinaca ka soo galayoo qubuur iyo qabri inuu wax tari karo awliye gacan wax ku haysto bay suufiyadeenni akhiiran isugu timid. dariiqooyin bay noqdeen, dawaa'if bay noqdeen, magacyay yeesheen, in col iyo in nabadaba waa yeesheen. laakiin dhowr arrimood bay isugu yimaadeen. aduu ama saalixiyadhe ama qaadiriyadhe ama axmediyadhe ama weysiyadhe waxa doonay ku magacow. dhowrka arrimood ay isugu yimaadeen: kow, awliyadu aakhariya adduunba maamulka iyo tasaruf bay leeyihiin, waxbayna qaban karaan wey. ee hebel ha la baryo, ilmaan kaa doonayaa, waxa laalay wixii ilaahay lahaayoo dhan awliyadu hadday nool yihiinna way qaban karaan, hadday dhinteenna way qaban karaan. taas mas'ale isugu ururiyeen. mas'alada labaadi, qofku hadduu maqaamaadka awliyada dallaco, qaarkood baa ku daray sifa iluuhiyuuba yeelan karaayo alxuluul walitixaad waay. marka la isku soo ururiyo, suufiyadeenni waxay noqotay ahamu caqaa'idiha, caqiidadooda ugu muhiimsan awliyadu tasaruf iyo maamul dunideen ay ku leeyihiin, dhib iyo dheefna ay gacanta ku hayaan. halkaasay isugu soo ururtay. oo maanta wax kasta haddii lasoo maro oo meel walba aad soo martay, shaykhu dariiqahum baa dembiga dhaafa, isagaa ilmaha bixiya, isagaa roob gacan ku haya, isagaa colaad iyo nabad haya, isagaa roob iyo abaar haya, isagaa kana isagaa kana isagaa kana. qalbigaaga ilaasho wuu og yahay, meel walbuu joogaa, taakataakuu ugu jiraa. halkaasay isugu soo ururtay. markii dambe xataa majaaniintiibaa awliya noqotay, kuwii waalaa xataa awliya noqdeen, ilaa lagu yidhahdo min karaamaatihi annahu kaana yakhtubu ljumucata curyaanan. mimbarka isagoon xataa kastuun qabin buu fuuli jira oo qaawan. nin waalan weye, nin mimbar fuulay isagoo qaawan dad hor istaagay, dee nin waalan weye. ninka waalan nuur baa derderay, iimaan weyn baa qalbigiisa galay oo ka weyn caqligiisa, adigana iimaan yar oo caqligaa ka yar baa galay ilaa aakhirih. intaa ka badan kusii dheeraan maayo, iyagana silsilad dheer baan ka duubay suufiyadii iyo taariikhdeeda. hal mid baa ii dhiman, suufiyada soomaalida maa lahum wamaa calayhim, mid mar inaan u soo qaado, kaga soo bilaaba zaylici iyo aweys iyo ilaa intaa aan maro. waa u ballansanahay, laakiin wakhtigunbaa ii sugay qaban la. laakiin guud ahaan suufiye waxay tahay iyo kutubtooda karaamaadkooda ku qoran iyo caqaa'idoodii iyo dawaa'iftoodii iyo ilaa manaaqib iyo mawlid iyo silsilad dheer baan ka duubay. ninkay gaartay bay gaartay, haddaad daydidaan ay heli kartaan baan u malaynayaa. taasina waa daa'ifada saddexaad ilaa hadda mushkiladeedu ay taagan tahay wey. daa'ifadaana waxaa la fogaaday suufiyada, marka waxaa la fogaaday la eego in riyo iyo manaam iyo haatuf la hadlay diin laga dhigto. kashfi baa layga fayday, lawxul maxfuud baan daalacday, waxaasaan ku riyooday, haatuf baa ii yimid, jin baa wax ii sheegay in waxaa xalaal iyo xaraam iyo fiicni iyo xumaan iyo samaan laga qaato baa kitaabka iyo sunnadii looga leexday. saas darteed kashfiga awliyada kitaab iyo sunno ka horeeya, istidlaalkii iyo nahjigii shariicada wax la raacin jiray oo dhan baa meesha ka baxay. daa'ifada u dambaysaan kusoo gabagabin, walow waktiga digniin la i siiyey waana kaa dhammaaday la i yidhi. daa'ifa alashcariya wey, bahal ashcariye la yidhaahdo oo asalkeedii jahmiye iyo mutakalimiin ka soo bilaabatay, markii dambana jawharatu tawxiid iyo xayaatu lislaam iyo kutubu sabca iyo ku dambaysay baa ka mid a. hal mid weeye baabka mushkiladeedu oo sifaadkii ilaahay uu qur-aankiisa ku sheegay sidaa loo yiri ma aha, unbu warkoodii kusoo urursamay. sidaad u qaadateen ma aha, sida qur-aanka ka muuqata ma aha, si kalaa jirta. oo sida kale jirta maxay tahay? sida culummada yada la quman wey.
صح سلف كسامة ديه جيرين صحابة سيدان لا إله ما ديه جيرين وان أغنهي بداس لما قلي جيرين لكن إلا قلا في عن وليبا ظاهر كنصوصتي إن الليحية في عن مسألة قب بدنا إيانا لقى الله عطي وحاوي سيدا بعقلك بني آدمك إيه علمك وحيك شرعك هذا يسكهر يمادان أيام كيبا مدنان تمدن وحي راهدين عقلك أصلا عقلك وحي كهر يمادانا وحبا سكا حتى هذه حديثة دوية ورك النحر كيسو انتاوي صببته آيادي حديثكو عقلك فرع كيهين وسي فرع وغن نقدين إلهي جريتان كيسا أصلا كدب وحاكا دلانيسا إنو النبي صدره صدريتان كالنبي وحاكا دلانيسا إنو كتاب كسو دجيو سننا وحيودو هذا بس سنة إيا كتابك وحي فرع كيهين إن نبي النماذا الله أقلاده والله سوغو نبي النما إن الله سوغنا وحي فرع كتهي إن إلهي جريتان كيسا الله أقون صدو إلهي جريتان كيسا وحي دهين آيات قرآن يحديثنا يمنا لغو مقران كريه عقلك ومادة إثبات الصانع وحدوث العالم ليرى هذا مادة فلسفية وعقلية كلية لغو غان كرا نبي إنو جيرانا معجزة كلية لغو عدين كرا معجزتنا عقلي كلية لغو عدين كرا صادرت الرمينتي إلهي يا الرمينتي النبي عقلي بأساسه صادرت عقلي وآبو وحويهي وحا النبي الله إيمان دونو دان آيادي حديثكي كهر تمادا ووح أسل كيسي كهر يميدي أصل كان لقاذن صفاتك قاركيد وقرآن كي سنة الشيغان عقلي ديدي مردو عقلي أصل كآباها هاو ديدي دين وحلو قاتب مجرو warka nuxurkiisu waxa lagu soo gabagabeeyay ashcariyadu inta way lacala munaasabad kale ka hadla laga yaaba waqtiga ka dhamaaday baa la isu soo celcelinaya ilaa waxaan ka bariyaa xaq inuu nagu sugo xaq iimaanka nagu dilo jazaakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi